markale ku soo dhawaada channelkeena xikmad official aad ugu barateen barnaamijyo xiiso badan. waxaan halkaan igu soo gudbin doonaa barnaamij xiiso badan kaasoo aynu uga hadli doono sifooyinka uu leeyahay saaxiibka xun. ku soo dhawaada barnaamijkeena. waxaa waajib ah inuu qofka muslimka ahi la jeclaado walaalkii muslimka ah iyo saaxiibkiisa wixii wanaaga uu la jecel yahay naftiisa, lana naco dhammaan xumaantada uu la neceb yahay naftiisa. taasina waxaa si xeer dheer leh uu sharaxaya xadiiska uu rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa aatee ku leeyahay iimaan dhammaystiran lama imaan qofka aan la jeclayn walaalkiisa waxa uu la jecel yahay naftiisa. waxaa wariyey Tirmidhi. haddaba adiga oo xadiiska nabigeena eegaya bal u fiirso saaxiibka xun fadiisa xunxun ee uu leeyahay. number 1 saaxiibka xun waa midka aan salaada tukan, soomin, iimaanka aan lahayn. number 2 saaxiibka xun waa midka mar walba ku sugan meelaha xunxun sida meelaha lagu qayilo, meelaha aan sharcigu banayn iyo wixii lamid ah. number 3 saaxiibka xun waxa uu kugu dhiirigeliyaa goobaha lagu sameeyo xumaanta. number 4 saaxiibka xun waxa uu kugu dhiirigeliyaa samaynta ficilo aan Allah raali ka ahayn. number 5 saaxiibka xun mar walba waxa uu kaaga sheekeeyaa xumaan iyo dhib joogto ah. number 6 saaxiibka xun waa kan mar walba aan lahayn xishood iyo naxariis midnaba. number 7 saaxiibka xun waa kan mar walba kaala hadla adduun ee aan aakhiro aan ku soo xasuusin. number 8 saaxiibka xun waa kan jecel in aad ka tagto dhaqanka iyo diinta suuban. number 9 waa kan mar walba dadka aflagaadeeya kuna yiraahda waxyaalaha dadku raali ka ahayn sida naynaasyo xunxun waxa soo raaca. number 10 saaxiibka xun waa kan aan hal xalaal aqoonin ee mar walba kuu sheega been. number 11 saaxiibka xun waa kan ku sifoobay dantii yaqaana ee aan dantaada ka talin. number 12 saaxiibka xun waa midka jahliga ah, waliba jahliga kala duwan isla weyn isaga oo bilaa aqoon ah. number 13 saaxiibka xun waa kan marka uu kaa maqan yahay xumaantaada faafiya iyo sirahaaga. number 14 saaxiibka xun waa kan ummadda ay ku tilmaanto in uu yahay sharwadeen. number 15 saaxiibka xun waa kan waalidkii iyo ehelkiisa aan xiriirin una samafalin. number 16 saaxiibka xun waa kan aan lagu arkin masaajidka iyo meelaha khayrka uu ka jiro. number 17 saaxiibka xun waa midka jecel in uu ku siiyo talooyin waxyeeleynaya aakhiro iyo adduunkaaga. saaxiibka xun waa kan aan jeclayn in aad horumar gaarto. 18 saaxiibka xun waa kan aan jeclayn in aad horumar gaarto. 19 saaxiibka xun waa kan kanaxa marka aad noloshaada horumar ku soo kordhiso. number 20 saaxiibka xun waa kan hadalkiisa iyo dabeecadiisaba ay qalafsan yihiin. 22 saaxiibka xun waa kan danba kaa yeelan marka ay dhibaato ku soo gaadho. number 23 saaxiibka xun waa kan kula saaxiiba howl adduun, lacag ama dano gaar ah oo isaga uun maslaxad u ah, hadhow marka ay dhammaatana kaa dhaqaajiya. 24 saaxiibka xun waa kan kolba weji ku tusa aanan hore ugu baran munaafiqnimo ah. number 25 saaxiibka xun waa kan aan qadarin hooyada, aabbaha, walaalada iyo ehelkaaga oo dhan. number 26 saaxiibka xun waa kan mar walba kuu muujiya weji xun iyo dabeecad qalafsan. 27 saaxiibka xun waa kan aan qadarin fikirkaaga iyo riyada aad wadato. 28 saaxiibka xun waa kan keligii sheekeeya ee aan sheekada waxba kaa siin. 29 saaxiibka xun waa kan aad faraxdo marka uu kaa maqan yahay. number 30 saaxiibka xun waa kan xanta yaqaan ee dadka isku dira. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. waxaa halkan nigu soo gudbiyay anigoo Cabdirasaaq Maxamed Cali. fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe, like and share si aan hore ugu sii socono. mahadsanidin.